Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashir ku saabsan luqadda Ingiriisiga barashadiisa. Cashirkana maanta wuxuu ku saabsan yahay family members, xubnaha qoyska uu ka kooban yahay ayuu ku saabsan yahay. Soo qaata qalimaantiina iyo buugaagtiina si aad cashirkan uga faa'iidaysataan. Magacayga waa Cabdi, waxaana guda gelaynaa hadda fasiraada cashirka. Family members, xubnaha qoyska. Family members, xubnaha qoyska. Father waa aabbo, dad waa aabbo, waa isku mid. Mother waa hooyo, mom waa hooyo. Son waa wiilkaaga, daughter waa gabadhaada. Aan ku celiyo, father waa aabbo, dad waa aabbo, mother waa hooyo, mom waa hooyo, son waa wiilkaaga, daughter waa gabadhaada. Paternal grandfather waa awowga aabbaha dhalay. Paternal grandfather waa awowga aabbaha dhalay. Paternal grandmother waa ayeeyada aabbaha dhashay. Maternal grandfather awowga hooyada dhalay. Maternal grandmother ayeeyada hooyada dhashay. Stepfather adeerka hooyada qaba ama hooyada ninkeeda. Stepmother eedada aabbaha qaba ama aabbaha xaaskiisa oo hooyada ahayn. Aabbaha xaaskiisa oo hooyada ahayn. Hooyada ninkeeda oo aabbahaaga ahayn waay. Marka saas ula soco. Brother waa walaalka hooyada iyo aabbaha dhaleen. Step brother walaalka eedada aabbaha qabo dhashay ama adeerka hooyada qabo dhalay. Half brother waa walaalka kugu aabbo ah ama walaalka kugu hooyo ah. Waa half brother waa walaalka ama kugu aabbo ah ama walaalka kugu hooyo ah, ama isku hooyo tihiin ama kaliya isku aabbo kaliya tihiin ayaa lahaa. Sister waa walaasha. Step sister waa walaasha eedada aabbaha qabo dhashay ama adeerka hooyada qabo dhalay. Half sister waa walaasha isku aabbo tihiin ama isku hooyo tihiin. Sister waa walaasha. Step sister waa walaasha eedada aabbaha qabo dhashay ama adeerka hooyada qabo dhalay. Half sister waa walaasha isku aabbo tihiin ama isku hooyo tihiin. Biological father waa aabbahaaga runta ah. Waxaa aragtaa dad raadinaya biological father, aabbahooda runta ah, ayna aqoonin. Ilmo mar hore lasoo korsaday, dad wateen ama soo korsadeen, aabbahooda saxda aqoonin raadinaya. Marka waxaa ku arkaysaa tviyada, warbaahinta ayaa ku arkaysaa ama journalada. Ama maahe markii cunug laysku qabsado ayaa waxaa lasoo diraa biological fatherka sida loo caddeeyo cunuga aabihiisa saxda ah DNA. Marka biological father haddaa aragtid wax kale ma aha, waa aabbahaaga adiga ku dhalay oo si rasmi ah ku dhalay oo saxda ah. Biological mother waa hooyada runta ah. Grandson waa wiilka ayeeyada u tahay ama wiilka aad awowaha u tahay. Granddaughter gabadha ayeeyada u tahay ama gabadha aad awowaha u tahay. Uncle adeerka ama abtiga. Aunt eedo ama habaryar. Cousin ilmo abti ama ilmo adeer. Nephew wiilka abtiga u tahay ama adeerka u tahay. Niece gabadha adeerka u tahay ama abtiga u tahay. Aan ku celiyo, uncle adeerka ama abtiga. Aunt eedada ama habaryar. Eedo ama habaryar. Cousin ilmo abti ama ilmo adeer. Nephew wiilka abtiga u tahay ama adeerka. Niece gabadha adeerka u tahay ama abtiga. Father in law waa sodogaaga ayaa la dhahaa father in law.
mother in law sodoh. mother in law waa sodoh. son in law wiilka sodohda u tahay ama wiilka sodoga u tahay. daughter in law gabadha sodohda u tahay ama gabadha sodoga u tahay. brother in law seedi. sister in law dumaashi. sister in law waa dumaashi. markaan ku celiyo, father in law waa sodog, mother in law waa sodoh, son in law wiilka sodohda u tahay ama wiilka sodoga u tahay. daughter in law gabadha sodohda u tahay ama gabadha sodoga u tahay. brother in law seedi. sister in law dumaashi. marka cashirkan aan ku baranaynay xubnaha qoyska halkaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa. cashirkan mid lamid ah intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegaya anigu cabdi ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.